munaasabada xiriiraha oo socday 3 cisho looguna dabaaldegayay sanad guuradii 15aad ee markii la aasaasay hay'adda Hirda ayaa waxa lagu soo afmeeray xalay habeen loogu magac daray habeenka horumarka waxaana halkaasi lagu marti qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Gaas aqoonyahan Maxamed Diini Amiin Caamir oo ku caanbaxay sameynta sawirada gacanta dhalinyarada la dagaalanta qabyaalada iyo ururka ardayda wadanka Holland dadweynaha dhageysanaya hadallada marti sharafta ayaa isugu jiray jaaliyadaha Holland Belgium Canada Cabdiweli Gaas Maxamed Diini Amiin Caamir Cabdifataax Faysal iyo Showki ayaa waxay xoog saarayeen qaabkii loo horumarin lahaa dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada injineer Maxamed Cigaal oo isagu ah gudoomiyaha hay'adda Hirda ayaa dhankiisa ka hadlay xilliga la aasaasay hay'adooda iyo waxa loo aasaasay intaba hadallo u muuqday kaftan iyo hoga tusaaleyn ayaa waxa halkaasi isku dhaafsaday Amiin Caamir iyo Professor Cabdiweli Gaas Go back to school initiative, go to school initiative waxa waaye 2013 hadda ah ilaa 2015 1 milyan oo arday ayaa la rabaa 18 gobol oo Soomaaliya in iskool lagu qoro aan hadda iskool dhigan waa kow waxa la rabaa in iskooladii hore oo baaba'sana la dayactiro kuwa cusub na la dhiso 18 gobolba waa laba Soomaha waxa la rabaa 14,000 oo macallin oo cusub oo dumarku boos fiican ay kaga jiraan in la shaqaalaysiiyo waxa la rabaa qaybta afaraad mise shanaad arday qurbaha joogta Holland America maxaa la dhahaa Poland meesha rabta joog oo isu xilqaama 6 bilood ilaa 1 sano nin walibaay arday ama jaamacad dhigta ama jaamacad dhameeyay young professional oo jooga galbeedka oo 6 bilood raba magaalo ama tuulo uu isagu doortay in uu ka soo shaqeeyo marka waxaan kala aan ka hadlaa Soomaalida waxay caan ku tahay isxaqiraada way isxaqirtaa wax walba ahaado ama ninka madaxa doon noqdo xataa markuu kursiga ka dagayo wuxuu jecel yahay musmaaro inuu dhigo si kan ka dambeeya marka ma jecla inuu u baneeyo walaalkiisa ama saaxiibkiisa waxay i weydiiyeen su'aasha ugu darneed waxay dhaheen niyo Cabdiweli Gaas ayaa sawirro badan ka sameysay haddana waa isgarab fadhidiin marka muxuu ku yiraahdeen oo yani Amiir Caamir uu sheegayo ahayd maaragtay ninba xubuu qoraya markaas wuxuu leeyahay muxuu wax iga sheegay runtii in badan buu iga sheegay wada socotaan wada Amiir Caamir laakiin ilaahay iga taa waliga inaan xataa xumaan aan u qaadan aan oran wax maaragtay dibuhu ku geystay Amiin kaas waxa weeye of course waa political satires anoo dimuqraasiyada baan ka imid I have to be tolerant minda uu sheegayaayo wuxuu yiri madaxda markay tagaan waxay sii dhigaan musbaar anigu musbaar ma dhigin waa ka soo tagay soo fiican kursiga oo liisha waxaan rabaa xogaa kooban inaan ka sheego ururka Hirda 17 bisha wuxuu u dabaaldegay 15 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay oo ku beegneed 18 May 1998 asaaskiisu wuxuu ka yimid in la isweydiiyay maxaanu qaban karnaa marka fikradda markay timid waxaanu niri maxaa ugu horeyso la bilaabi karaa oo aad wax ku bedeli karaysaan waxay noqotay waxbarashada Somali Students Network waa urur mideeyo ama ay ku mideysan yihiin ardayda Soomaalida wadanka Holland ururka laba ujeedo ayuu leeyahay labadiis ujeedo waxa mid koowaad in ay taageeraan ardayda Soomaalida halkan wax ka barata inay aadaan higher education ama waxbarashada sare Hirdana waxay ka mid tahay hay'adaha muddada dheer ka soo shaqeynaya ummadda wanaageeda annagii dadkana lamida ama ururada kala baahi ku dayasho ayaad mudantiin inta badan ururada Soomaaliyeed waxa lagu sheegaa 2 sano 3 sano markay jiraan in lagu kala tago balse 15 sano waa muddo aad u dheer annaguna waa idinku dayan doonaa 15 sano kadibna waxaan rajaynaynaa in idinkoo sii jiro oo siyaabo kala ka shaqeynaya ummadda wanaageeda iyo annagoo jirnay inaan mar labaad kulanno kulankaasna uu ka dhaco gudaha Soomaaliya ee aanan noqonin dad qurbo ku kulmay insha Allah Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV Amsterdam